Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Puntland Post waa mahadsantihiin arintaas way jirtaa shalay odayaal anaga naga tirsan oo waxaan teamkayga ahaa shalay waxaan ka hadalay arrimaha Puntland ka jira kabacdina hadaan shirki ku soo kala kacnay xalay waxa dhacday in odayaashii laba kamid ah la xiro waliba sifa sharci ahayn loo maro oo inta guryahoodii qaybna loogu dhaco qaybna suuqa laga gudbiyo jeelka. arrintaas marka waa arrin Puntland ku cusub, waa arrin hadii Ilaahay ku yahay aan horay u dhicin oo dhaqanka iyo hadii Ilaahay ku yahay ama sharciga ama qawaaniinta adduunka u jirta aysan meelna ka soo gelin oo arrin khaldan ah. marka arrintaas anaadiya waxaan aad iyo aad u cambaaraynaa oo socodsiinayna xaafadda iyo caalamkaba in arrimahaas ay jiraan in Puntland arrimaha ku kacday arrimahaasuna arrimahan loo dulqaaday odayaasha la xiray ama nabadonada la xiray magacyadooda iyo xilliga la qabtay adeer waxa la xiray odayaasha xalay baa mid la qabtay midna saakii baa waxa laga qabtay markii gurigiisa ka soo baxay oo suuqa u soo baxay la qabtay labada waxa loo gudbiyay jeelka waxaan ku dhacaan laba odayo mas'uul odayaasha dhaqanka ah oo gobolka bari ka soo jeeday bay ahaayeen. marka waxaan aad iyo aad saxaafadda wax ku dhacaan ugu sheegaynaa inay arrintaas tahay arrin khaldan aan caraynayno aysan ahayn sifa sharci oo qofku hadii uu qof mas'uul yahay oo dhaqan ah in waaragtay sifa sharci loo soo maro oo dacweeyo oo maxkamadda wax kala mariyo oo hadii la eedayn la soo eedeeyo oo kabacdi markaa dambi yeesho markaas la gudbiyo anagu qof dambi leh gacan siinayna laakiin markaan waxay ahaayeen niman nabadoon ah oo dhaqan ah oo aan reeb ka saliima oo wax quraan shalayna way hadleen qofkuna aragtidiisa waa dhiiban karaa waa hadli karaa dhibaatooyinka ka jira Puntland wuu sheegi karaa ama Soomaaliya ka jira qofka marka maxaad u hadashay laguma xiri karo hadii arrintan waa maxaad u hadashana waa arrin aad u fool xun oo runtii waxa ku qofka waxa ku raadiyay aragtidiisa iyo xorriyadiisa qofkiisa ka hor imanaysa. nabadoonada la xiray magacyadooda ma haysaa labada oday oo la xiray ninna waxa la yiraahdaa Awil waxa la yiraahdaa Awad Maxamed Faarax ninna waxa la yiraahdaa Diraac Yusuf Buuxe baa la yiraahdaa. marka arrimaha lagu eedeeyay oo dawladda ay ku xirtay hadalkiina shalay ka sokow maxaa kamid ah odayaashu magaalada ay joogeen oo waxa ku dhacaan cidina waxuma haysan waxa laga raacay oo lagu haystaa waa shalay maxaad u hadasheen maxaad hadii Ilaahay ku noo dhaliisheen maxaad wax nooga sheegteen soo hadli ka dhaameen intaas lagu haystaa wax kale oo lagu haystaa ma jirto. hadda xagee bay ku xiran yihiin labada nabadoon oo la qabtay waxay ku xiran yihiin jeelka weyn oo dadka hadii Ilaahay ku yahay mar dambiilayaasha waaweynka lagu xirayo baa lagu xiray odayaasha loo gudbiyay. ma jira wax waaran maxkamadeed oo lagu xiray raggaasi intaad ka warhaysay adeer waa waxaan ku sheegaya ka cabanayna weeye wax waaran ah iyo wax hadii Ilaahay ku dacwad ah iyo wax eedayn ah iyo wax hadii Ilaahay ku xeeraale og tahay iyo wax kale midda toona ma jiraan midna gurigooda baa loogu dhacay oo laga haystay si afduub ah oo kaleeto oo sidii adigu wax kuna aan ahayn wax sifa sharci aan ahayn baa lagu haystay oo wax ka bacdina jeelka baa loo gudbiyay meelaha lagu rido dadka maaragtay dadka soo laayo maadarinta oo kale halkaas lagu rido ku sheegaya. Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran.